ciyaaryahanka ugu taajirsan dunida ma taqaanaa qofka uu yahay 27 jeer ayuu ka taajirsan yahay Cristiano Ronaldo 33 jeer ayuu ka taajirsan yahay Lionel Messi 50 jeer ayuu ka taajirsan yahay ciyaaryahan Neymar ciyaaryahanka ugu taajirsan dunida kaliya waxa uu jiraa 20 sano magaciisu waa Feka Bukaya waxaana uu dhashay wadanka Boronaya waana ciyaaryahan u diiwaan gashan kooxda Leicester City inkastoo uusan ka soo muuqan kooxda Leicester City waxa uu soo ciyaaray kooxaha Southampton iyo Chelsea 2016 ayuu heshiis professional ah u saxiixay kooxda Leicester City kubadda cagta ma aha sababtu ugu noqday xidiga ugu taajirsan dunida balse wuxuu ugu mahdinayaa qoyskiisa Feka Bukaya waxa adeer u ah suldaanka wadanka Boronaya waa wadan qani ku ah macdanta ceeriinka ah ciyaaryahanka nasiibkiisa waa mid aad u weyn waxaana uu leeyahay 20 bilyan waxa aabihiisa ah deeqsiga weyn ee boqorka Jeffrey waana ninkii qarash gareeyay in ka badan 15 bilyan hal xaflad waxaana uu 17 milyan ku bixiyay in uu keeno Michael Jackson waxa uu dhisay garoon weyn oo ay ka dhacayso xafladda dhalashada wiilkiisa intaas oo dhanna waxa uu sameeyaa kaliya in uu kaga yaabsado wiilkiisa 7 sano jirka ah Jeffrey aabaha Feka Bukaya dhalay waxa uu leeyahay 2300 oo gawaarida raaxada ah 8 yuuradaha khaaska ah 5 maraakiibta yaryar ee damaashaadka ah 500 oo guri iyo qasriyad dhowr ah laakiin Feka Bukaya waxa kaliya ee uu doonayo waa in uu noqdo ciyaaryahan weyn ee kubadda cagta ah ciyaaryahankan waxa uu haystaa lacag badan oo ku gadan karo koox isaga uu leeyahay isla markaasna uu ciyaaro laakiin maya ee waxa uu go'aansaday in uu guul ku gaaro kaliya dadaalkiisa waxaan ciyaarayaa kubadda ilaa yaraanteedii waxaan mar walba jeclaa in aan ku dhex jiro garoonka aniga oo kubadda ku hayo lugtayda waalidiintayda mar walba way iga caawin jireen in aan gaaro riyadeeda in aan noqdo ciyaaryahan aad u weyn in aan ka mid noqdo kooxaha ugu waaweyn dunida waxa ii furtay indhahayga waa inaad aad u tababarataa xitaa si aad u hesho fursada yar ee aad ku noqon karto ciyaaryahan ciyaaryahanka Feka Bukaya weli ma uusan ciyaarin kooxda Leicester City balse waxa uu 5 ciyaarood matalay xulkiisa ciyaaryahankan ayaa waxa uu ku dadaalayaa in uu ka gool gaaro riyooyinkiisa una mar uu ciyaaro kooxaha heerka koowaad ee Premier League waana xidig leh xirfad wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ciyaaryahanada adduunka waxaynu aragnaa in ay juhdi iyo dadaal ku bixiyaan sidii ay hanti ku yeelan lahaayeen laakiin Feka Bukaya waa uu ka duwan yahay midaas waxaana uu dhashay isaga oo taajir ah waxaana uu doonayaa in uu ka dhabeeyo riyooyinkiisa uu noqdo maalin ciyaaryahan heer ka gaara kubadda cagta maxaad u rajeynaysaa taajir yaraha Feka Bukaya